daawadayaal ku soo dhawaada waxaa la burmaad xikmawi channel. Please haddii aad ku cusubtahay daawada marka koobaad fadlan subscribe nagu caawi commentigana wixii faallaa ee tala iyo tusaale aadna siinayso noogu soo dir, sidoo kale share-tana asxaabtaada la wadaag. daawadayaal maanta waa alaabo waxa laga hadlayay ilaa maanta qamar sugaani iyo ugbaad aragsan. marka koobaad waxay ahaaneen laba lamaane oo nolosha midow ku sameeyay, sidoo kalena soo wada qaatay waqti badan, hase yeeshee wax kastaa soo dhex galaane laba qulub ama laba qalbi oo isku saafixa kulli wuxuunbaa soo dhex gala. marka sheekadu waxay kusoo gunaaniday inay ugbaad aragsan iyaduna musicianka qarniga la ictiraafsan yahay oo kasoo jeeda dalka Jabuuti in iyaduna xaafad la yeegleesho. sidoo kale musicianka labaad ama fanaankan isaga laftigiisa qamar sugaani ayaa waxa uu sameeyay isaguna wixii ku munaasibka ahaa ayaa uu sameeyay, waxaanu sameeyey inuu mehersado, yacni uu isagana aqal u yegleelo. marka allahuma salli calaa maxamed, xaaladdu xaggaas ayay maraysa. wixii faahfaahina intaa dheeraada waan idinkala soo gudbin doonaa, laakiin haddii ay nahay tiim halabuur mahad xikmay waxaynu leenahay dhammaantood alla idin barakeeyo midba midka kale qulubtaa u hantay, insha allah shaydaankana alla idinka dhex saaro ayaynu leenahay haddii ay nahay tiim halabuur mahad xikmawi. asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu. hana iloowin gambaleelka inaad furatid markastee kusoo gaadho codkaygu insha allah bismillaahi kariim, si aad noola socotid video kasta aan soo dhigno aad noqotid daawadaha koobaad ee 15 second ee ugu horeeya uu soo galo.